hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa soo bandhigtay natiijo ku saabsan baaritaano horudhaca oo ay sameeyeen maalinimadii shalay ilaa iyo haatan. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa war qoraal ah ay soo saartay barteeda Twitter-ka waxa ay ku sheegeen isla markaana ku yiraahdeen waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay magaalada Muqdisho 28 bishii December aynu ku guda jirno qorshihiisa lahaa dal shisheeye. baaritaanka ayaa socda si loo dhameystiro waxaan la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamka qaarkiis. sidaasi waxa yiri hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya oo barteeda Twitter-ka ku soo qortay qoraal ka hadlaya arrinkaasi. warar aynu ku helayno warbaahinta dalka Turkiga oo la geeyay qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii waxyeelada ay ka soo gaartay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay baahinayaan in haatan ay dawladda Turkiga ogaatay siro badan oo ku saabsan arrimaha qaraxaasi iyo halkii laga soo abaabulay iyo waliba qorshahan cidda ka dambeysay. saacadaha soo socda ayaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal warar iyo warbixino ku saabsan arrinkaas. ha u dayma la'aan si aad ula socotid subscribe page-kan. sidoo kale waxaan ka codsanaynaa si waqtiga uu soo dhaco uu kuu soo gaaro warkayaga ama warbixintayadu furo calaamadda gambaleelka ah. mahadsanid.